xilli waddankan ay ka socdaan gurmadyada kala duwan iyo dadaalada la doonayo in laga guulaysto cudurka coronaviruska kaasi oo aysan u kala harin shacabka iyo weliba dowladda waddankan Britain ayaa haddana dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddankani waxa ay qorshaysteen inay qayb weyn ku yeeshaan gurmadyada kala duwan ee la fidinayo isla markaana la doonayo in dadka lagu samata bixiyo xaafadda Finsbury dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool ayaa waxa ay go'aansadeen in ay qayb ka qaataan gurmadyadaasi waxaana ay go'aansadeen in isbitaalka Whittington Hospital ee ku yaala meel aan sidaasi uga fogeyn xaafadda Finsbury ee waqooyiga magaalada London in ay gaarsiiyaan afur iyo weliba waxyaabo kale oo ugu tala galeen in dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee isbitaalkaasi ka howlgalaya ay afurkaasi ay uga qayb qaataan gurmadka maadaama saacado aad u dheer ay shaqaalaha iyo weliba dad bukaano ah halkaasi ay ku sugan yihiin kuwaasi oo aysan u fududeyn in guryahoodii ay tagaan oo ay ku soo afuraan halkan waxaan isugu nimay galabta waxaan ka qayb qaadanaynaa arrinta ka dhacday adduunyada oo dhan ka dhacday ee coronavirus marka anagoo saaxiibo Finsbury ayaa isu nimid waxaanu istusinay inaanu ka qayb qaadano arrinta oo aanu sidan xoogaa lacagaan iska ururnay waxaanu samaysanay GoFundMe site leeda lacagtan doonayna inaanu cunto maanta ku iibino saa ka aragtaan halkan lagu samaynayo marka waxaan doonaynaa inaanu Whittington Hospital ayaanu la xiriirnay wayna sugayaan todobada iyo bartaan la ballansanay inaanu geyno ilaahay khayr ka siiyo friends badan oo xaafadda Finsbury degan iyo qaar kale oo North London iyo degan baa ka qayb qaatay waxa waa arrin aad u wanaagsan community-yada kale ee magaalada deganaa ama dalka deganaa sida Turkiga Mongolia Hindida dhammaan way ka wada qayb qaateen marka anaguna waxaan istusinay inaan ka qayb qaadano marka jazakallahu khayr qof kasta oo wixii Bismillahir Rahmanir Rahiim waxaan jeclaan lahayn dadka kale ee degan magaalada London guud ahaan ama meel walba ama UK-ba inay ayagana ka qayb qaataan sidaan anaga uga qayb qaadanayno oo kale inay caawiyaan dadka walaalaha xanuunsan dhibaataysan ama jiran ee isbitaalada ku jira ama ka shaqeeya NHS-ka marka waxaan leenahay adiga laftigiina isxilqaam waxaynu xilligan ugu aadinay maadaama ay Ramadaan tahay bil Rasoon ay tahay dad walaalaha oo sooman oo ka shaqeeya isbitaalada gaar ahaan isbitaalka Whittington oo muslimiin u badan ama ku jira xanuunsan oo yaala meesha inaan afur ugu geyno oo aan la ku beegno bisha Ramadaan waxay noo tahay nasiib maamulka isbitaalka ayaa dhankooda waxa ay ka mahad celiyeen dadaalka ay bixinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo gurmadka ay gaarsiiyeen isbitaalka. Just like to say a huge thank you to Abdi and his friends and colleagues and wish everybody a Ramadan Mubarak because this means so much to our Muslim staff who are fasting at the moment and working really long hours and they will be so grateful for this lovely offer of food. Really thank you so much. On behalf of Whittington Health, we're just so excited that you've taken the trouble to do this. So I wish you all a happy iftar yourselves later. Thank you very much. And again, Ramadan Mubarak. Soomaali aad u fara badan ayaa ka mid noqotay dadka saamaynta culus uu ku yeeshay cudurka coronaviruska ee sida weyn saamaynta ugu yeeshay waddankan Britain iyo guud ahaan caalamka waxaana waddankan ku geeriyooday dad si weyn dalka Soomaaliya looga yaqaanay kuwaasi oo u geeriyooday cudurka coronaviruska dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ay wadaan dadaalo kala duwan oo ay doonayaan in ay qayb uga noqdaan gurmadyada kala duwan ee la bixinayo kuwaasi oo muujinaya in Soomaalidu ay ka dhex muuqdaan community-yada ku nool waddankan Britain. Maxamed Cabdisalaad, London.